السلام عليكم رمضان مبارك أصحابتك كحران كرامة channel maanta iyo muuqaalo kale oo xiisahoodii wata oo aad aga barateen karaama channel in idinku soo gudbiyo muuqaalada la yaabka leh ee ay kaamiraduhu qabtaan ku soo dhawaada barnaamijka. halkan waxaa lagu duubay Japan waxaa laba ciyaal ah ayaa ku ciyaarayay beer waana xilli habeenimo oo waqti dambe ah gadaashooda waxa ay ka maqleen cod cabsi geliyay kaamiradan wax la yaab leh ayaa ay qabatay in ayaa waqti dambe oo habeenimo ah soo galay kayn taas oo lagu sheego in lagu arko makhluuqaad aan horey loo arag laakiin isaga waxa kaynta ka qabsaday waxa ay ahayd wax aad u cabsi badan ana uu maqlay cod aad iyo aad u cabsi badan markii dambana ku sababtay inuu meesha iskaga carro waa arrin aad u layaab badan waa maktabada dhexdeeda saq dhexe oo habeenimo ay iska dhaqaaqayaan ashyaadii dhex yaalay maktabada iyo buugaagtii taas oo ay duubtay kaamarada maktabadu koox dhalinyaro ah ayaa maalinimo yimid meel dhisme burburay kaas oo godadyo wax ka samaysmeen kaas oo laga maqlo codad aad u layaab badan laakiin iyagu maxa ay kala kulmeen I don't know if they can see that. Hold on, let me zoom in. Oh my. There's a thing saying. Did you come on, you're with me? I'm not just right there. Well, dude, get the back, get the back, get the back. No! Get the back, get the back. Back up. What? Go, go, go! Go now! dhalinyaradani iyagu markii horeba codkan naxdinta leh ka cabsanayay ayaa wax qaabkiisu la yaab leeyahay ku soo dhawaaday markiibana meesha waa ay ka carareen ana aysan sii duubin waxani waxa uu yahay ninkan waxa uu soo galay guri dadkii lahaa ay ka guureen sanado badan ka hor waxaana gurigan soo gali jiray dad iyo badan oo ku sheegi jiray in gurigan kulli wax degan yihiin laakiin ninkani waxa uu soo qaatay kaamarad laakiin markii dambe uu cabaar ku sugnaa waxa uu maqlay cod la yaab leh oo ka soo baxaya dabaqa hoose Cough. Hello? Off. Hello? Cough.
codka uu ka dhex maqlay aadam guriga dhexdiisa waxay ku noqotay mid aad u naxdin badan. Degdeg ayuuna guriga uga soo baxay si aan naftiisa wax loo yeelin. Ka warrama ma waxa wanaagsan muuqaaladan badan ee la soo koobay ee waqtiga yar lagu soo koobay aynu maanta tijaabinay, mise muuqaaladii labada iyo midka iyo saddexda ahaa ee naga qaadan jiray 10 daqiiqo faahfaahintiisa iyo ka hadalkiisu. Fikirkiinu waa noo muhiim.